maxamed cadde ayaa soo ururiyey xogahan oo qadka ku jira. maxamed, bal hadda inoo bilow warbixintan. shanta wadan xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kala ah Ruushka, Shiinaha, Britain, Faransiiska iyo Mareykanka ayaa waxa ay xaq u leeyihiin in ay hor joogsadaan qaraar walba oo la keeno golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayagoo aanan sabab sheegin. ereyga veto waxa uu asalkiisa ka yimid afka Laatiinka oo macnaheedu waxay tahay waxaas waa diiday. hase ahaatee macnahaas ayaa hadda waxa uu noqday mid caadi iska ah kadib markii uu dhammaaday dagaalka labaad ee adduunka oo la abuuray qaramada midoobay 1945. ereygan veto kuma qorna cahdiga qaramada midoobay, hase ahaatee waa erey ah xaq inuu qofka u leeyahay ama wadanka u leeyahay in uu diido ama ku gacan sayro qaraar, oo macnaheedu ay tahay qaraarkaasi waa in uu dhicisoobaa iyada oo aanan lagu salayn wax cadaalada sababta qaraarkaasi looga hor imaanayo. waa gartay qaabka marka uu u shaqeeyo maxamed, ama codkan loo adeegsado iyo sida codaynta ay u dhacdo inoo sharax. diidmada wadan ka mid a shanta xubnood ugu waaweyn golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu hor istaagayaa qaraarka. 15 xubnood ee golaha ammaanka ku jira, 5 ayaa kursigooda joogta yahay, waxaana ku filan in mid ka mid a wadamadaasi ay hor istaagaan qaraarkana markaasi maba gudbayo haddii uu xataa ay taageeraan 14 dal oo kale. codkan diidmada qayaxana ayaa marar badan la cambaareeyey, gaar ahaan maadaama aynu ku jirin axdiga ama dastuurka qaramada midoobay. dadka ka soo horjeeda ama cambaareynaya qaraarkan ayaa sheegaya inay ka hor imaanayso nidaamka dimuqraadiyadda. 5 dal ee xubnaha joogtada ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay ma aha kuwa la doortay, hase ahaatee waxay ka faa'iideysanayaan dabeecadda ah dagaalkii labada adduunka awoodihii markaas jiray inay ugu cudurroonaayeen. waa gartay, waa yahay. heerarka marka ay soo martay haddaynu dib u qooraansanno ilaa iyo xilliga dagaalkii qaboobaa, qaabka u shaqayn jirtay hanaankan uu shaqayn jiray codka diidmada qayaxan aynu dib u eegna maxmed. siyaasaddii ku salaysnayd firqooyinka ayaa wixii ka dambeeyey dagaalkii labaad ee adduunka iyo dagaalkii qaboobaa waxay abuurtay xiisad u dhaxaysa wadamada reer galbeedka ee hantigoosiga ah ee uu Mareykanka horseed ka yahay iyo wadamada shuuciyadda ee bariga ka jira ee Itixaadka Soobiyetiga uu garwadeen u ahaa. Ruushka, Itixaadka Soobiyetiga ayaa diidmada qayaxan isticmaalay in ka badan 123 goor. intooda badanna Itixaadka Soobiyetiga waxa uu ka soo horjeeday wadamada reer galbeedka siyaasadooda. laakiin hadda markii awoodii Itixaadka Soobiyetiga ay la wareegtay xukuumadda Ruushka, dhowr goor un baa la isticmaalay codka diidmada qayaxan, halka dowladda Mareykanka ay diidmada qayaxan isticmaashay in ka badan 79 goor. markii 3 loo qeybiyay 2 qeyboodna waxay ku difaacaysay danaha Israa'iil. Britain ayaa diidmada qayaxan isticmaashay 32 goor oo qaar ka mid a la ku taageeraysay diidmada qayaxan. 2 diidmo qayaxan la isla isticmaalay, mar iyadoo taageeraysa Mareykanka, marna iyadoo Faransiiska isticmaalaysa ay taageeraysay, halka inta kale keligeed ku difaacaysay wadankii Rhodesia la oran jiray. waa gartay. waayo maxamed, haddaynu si gaar ah u dul istaagno isticmaalka Mareykanka iyo codkan diidmada qayaxan, si gaar ah waxaa loo yiraahdaa waxay quseeyaan intooda badan kuwa u daneynayay dadka Falastiiniyiinta ah laakiin Israa'iil ka soo horjeeday. inoo faahfaahay qaabkaas Mareykanku isticmaalay. qaraarada uu Mareykanka hor istaagay waxaa lagu cambaareynayay Israa'iil, waxaana la dalbanayay in ay ciidamadeeda kala baxdo dhulka Falastiiniyiinta oo ay xoog ku qabsatay 1967. waxaa kaloo ay isticmaashay dowladda Mareykanka diidmada qayaxan 1976 iyadoo hor istaagaysa 2 qaraar
oo lagu dalbanayay xuquuqda ay dadka falastiiniyiinta u leeyihiin in ay ismaamulaan. waxaa sidoo kale maraykanku uu diiday inuu cambaareeyo israa'iil markii ay dabka surtay masaajidka al aqsa iyo markii ay qaarijisay sheekh axmed yaasiin oo ah ninka aasaasay ururka xamaas sanadkii 2004 ayay qaarijisay. sanadkii 2011 dowladda maraykanku waxa ay sidoo kale diiday qaraar lagu cambaareynayay deegaameynta israa'iil markii laga gudbo 14 xubnood oo golaha qaramada midoobay ka mid ah inay taageereen qaraarkaasi. December 3 2014 qaraar ay dalalka carabta soo saareen ayaa dowladda maraykanka ka hortimid oo diidmada qayaxan u isticmaashay oo ku dhawaaqayay in la aqoonsado falastiiniyiinta dowlad lana soo afjaro israa'iil xoog ay ku haysato dhulka falastiiniyiinta muddo 2 sanadood gudihiis. waa garta haddii ruushka aynu si gaar ah u dul istaagno maxaa isbedelay markii meesha uu ka baxay midowgii Soviyeeti? xukuumaddii itixaadka Soviyeetiga markay burburtay 1991 ruushka waxa uu isticmaalay oo dhaxlay kursigii golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee itixaadka Soviyeetiga codka diidmada qayaxan in ka badan 4 goor oo ay ka mid tahay qaraar lagu maalgelinayay howlaha qaramada midoobay ay ka wado jasiiradda Qobrus iyo qaraar kale oo ka dhan ahaa ama lagu cambaareynayay dembiyada xukuumadda Suuriya ay gashay kadib 2014 qaraar la soo saaray ayay ruushku diiday. isla markaasna Shiinaha ayaa hor istaagay oo cambaareeyay qaraarkaasi laftirkiisa. ruushka ayaa diidmada qayaxan u isticmaalay golaha ammaanka ee qaramada midoobay 13 dal ayaa taageeray qaraarkaasi oo Suuriya dagaalkeedii ilaa iyo 2019 dhowaan September 19 isla sanadkaas 2019 ruushka iyo Shiinaha ayaa wadajir u hor istaagay qaraar ku baaqayay xabad joojin in laga qabto waqooyiga galbeed ee gobolka Idlib ee wadanka Suuriya. waxaana ay ku andacoonayeen ama sheegayeen wadamadaasi inaan la faragelin arrimaha gudaha wadanka Suuriya. waa garta waayahay ruushka iyo dagaalka Ukraine intii uu ku jiray bal inoo waran waxa arrintan ay ruushka ka adeegsadeen ama ay ka isticmaaleen codka diidmada qayaxan. ruushka markii uu dagaal ku qaaday Ukraine ruushka diidmada qayaxan ayuu isticmaalay bishii February 25 2022 waxa uuna hor istaagay qaraar ay soo gudbisay xukuumadda Albania oo Maraykanka ayaa wadajir u soo gudbiyay waxaana ku baaqayay in ruushka uu joojiyo howlgallada militari ee wadanka Ukraine ka wada. inkastoo qaraarkaasi 13 dal ay taageereen 3 ay ka aamuseen ruushka ayaa diidmada qayaxan ku isticmaalay halkaas ayuuna warkiisa ku dhamaaday. September 3 sanadka 2022 ruushka mar kale ayuu diidmada qayaxan isticmaalay markaan waxa uu meesha ka saaray qaraarka Maraykanka iyo Albania ay wada diyaariyeen oo lagu cambaareynaya waxa lagu tilmaamay aftidii uu ka qaaday gobolada Donetsk, Luhansk iyo Kherson iyo Zaporizhzhia oo lagu xaqiijinayay in la qarameeyo goboladaasi ay taageeraan in la qarameeyo. waxaa muuqatay in ay diideen in la aqoonsado Maraykanka iyo xulafadiisa ayagoo ku saleynaya in ruushka uu goboladaasi qarameynayo qaanuunkan ay khilaafsan tahay. hase ahaatee ruushka ayaa diidmada qayaxan ku hor istaagay. waa gartay haddaynu dib ugu laabano arrimaha Falastiiniyiinta iyo Israa'iiliinta Gaza dagaalkii ka dhacay 2023 sidee arrimahan u saameeyeen gaar ahaan codkan diidmada qayaxan? dowladda Maraykanka ayaa dhowr goor diidmada qayaxan isticmaashay iyadoo ku taageeraysa Israa'iil kadib markii Israa'iil ay dagaal ku qaaday marinka Gaza October 2023 Maraykanku waxa uu diidmada qayaxan isticmaalay 4 goor intii u dhaxaysay 2023 iyo 2024 October 18 2023 dowladda Maraykanku waxay hor istaagtay qaraar
ay soo gudbisay xukuumadda Brazil oo lagu dalbanayay sabab bini aadan aawadood in xabad joojin la qabto si gargaar loo gaarsiiyo marinka Gaza. marka laga gudbo in 12 xubnood oo 15 xubnood oo golaha ammaanka ka tirsan ay taageereen, Mareykanka ayaa diidmada qayaxan ku dhuftay. Mareykanku waxaa sidoo kale veto uu isticmaalay ama diidmada qayaxan bishii Juun 5, 2025 oo kaga hor yimid qaraar ay soo gudbisay xukuumadda Algeria oo ku baaqayay in xabad joojin degdeg ah laga qabto marinka Gaza. marka laga gudbo in 14 dal ay taageereen xabad joojintaas, Mareykanka ayaa tirada diidmada qayaxan ama vetoga uu ku taageeray arrimo Israa'iil quseynaya ayaa waxa ay gaareen 49 ilaa ay laga soo bilaabo 1970. bisha Abriil 7, 2026 Ruushka iyo Shiinaha ayaa wadajir golaha ammaanka ee qaramada midoobay qaraar la keenay oo Iiraan laga dalbayay inay dib u furto marinka Hormuz ayay hor istaageen si loo xaqiiqsado in marinka Hormuz si xor ah loo maro markii Iiraan ay ku soo rogtay xanibaad. intii dagaalka uu socday u dhaxeeya Mareykanka iyo Israa'iil iyo Iiraan oo February dabayaaqadeeda bilowday isla sanadka 2026, waxaana moodaa Iiraan in qaraarkaasi ka dhanka ahaa ay hor istaageen Ruushka iyo Shiinaha. wuxuu ahaa qaraarkii ugu dambeeyay ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay la keeno. waa gartay maxamed, aan kusoo gabagabayna marka isbedel marka in la sameeyaa muxuu ku xiran yahay? ilaan wadamadan ayaga baa xirtay xayndaabkii, sidee marka isbedel loogu samayn karaa? ila waynu aragnaa cid walba danaheeda ku difaacaysa. su-aashaas muddo badan ayaa laga fikrayay. golaha guud ee qaramada midoobay dhowr goor ayaa doodaas la keenay in dib u qaabeyn lagu sameeyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay, laga dhigo nidaam dimuqraadi ah, codkan diidmada qayaxana in la laalo. laakiin hadda sida wax u socdaan, wadamo waxaa jira golaha ammaanka ee qaramada midoobay ka tirsan oo miisaan iyo cudud hadda aan lahayn, laakiin waagaasi dagaalka labaad ee adduunka wixii ka dambeeyay ahaa wadamo waaweyn oo wax gumaysan jiray, hanti badan iyo xoog badan lahaa sida Faransiiska oo kale. waxaana muuqata hadda inay jiraan wadamo cudud leh oo aan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ku jirin, sida Hindiya, sida Brazil, Africa, Nigeria, Masar, South Africa, Asia, Indonesia, Japan. waxaad moodaa marka caalamkii la aasaasay iyo nidaamkii la aasaasay wixii ka dambeeyay 1945 hadda inuu leecleecayo. dalalkii ka faa'iidayay kuna shaqaysanayay ayaa danahooda arki waayay. hadda waxay rabaan ayaa mari la. waxaadna moodaa inay yareysanayaan gaar ahaan Mareykanka. qaramada midoobana waxaad moodaa dagaalkan Iiraan marka la fiiriyo sida u dhacay in la gees maray xeerarkii qaramada midoobay oo dagaal gardarro ahaa, in qaramada midoobay ay ku jirto xaalad ay si nuxuusayso. barnaamijyo badan ayaan ka diyaarinay intuuna dagaalka bilaaban ka hor awooddaasi qaramada midoobay siday u nuxuusayso. haddana waxaa muuqata Iiraan hadda inay cudud weyn noqotay oo gobolka bariga dhexe ka soo baxday, sida khabiirada hadalku dhigayaan. sida keliya ay isku difaaci karayso waxa weeye inay meeqaam culus ku yeelato nidaamyada caalamiga ah, Mareykanka la soo galo joojiyo heshiiska hadda la rabo in Iiraan lala galo. haddii uu suuragal noqdo waxa ay noqonaysaa mid wax badan lagu bedeli doono, sababtoo ah Mareykanka dagaalkan sidii uga lug bixi lahaa ayaa adag. waxaadna moodaa galgalkii uu ku lahaa bariga dhexe in isbedel uu ku imaanayo sida khabiirada hadalku dhigay.